maanta taariikhdu tahay 14 bisha Toddobaad 2013 waxaan dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Boocan iyo waaxigeeda ay isugu soo baxeen iska nadiifiyaan qashinka buuxa kooxayaasha iyo dacallada iyo bartamaha magaalada Boocan si kastaba ahaatee barnaamijka waxa ka qayb qaadanaya dhammaan magaalada kala duwan ee bulshada sida hooyooyinka abayaasha waxgaradka iyo culimooyinka وراي واحد برنامج كعلي عبد السلام علي الصلاة وكمل مسؤولين تدخل بوعة احنا ملح هرمرت بيها تدخل بوعة عبد الله برنامج هدول كذا ورث برنامج قلت وحنوان الناس يعني لكن واسكت الشري وما لي أنا كلا حريم بيوحي وعصرنا مجال الدليل يقشك الشغالان تدعي الموجودين معلمين أرضيدا قربك هوالك عد وجوه الله قادنا الشاه وأنه لكوكنا عصرنا هي أنا ولا وكذا قادنا برنامج يعني كل رجالين غلطان أنا كل رجال تاوقت ومض والبيضة وهم بوحوي أما هرم مركز هو جامسة أنا وحوي تجي بعده هو جامسة وعنو قان سنين أنا وهرم مركز هو جامسة كنا تشتغل عنا أنا هذه أجل مثل كاسة وعد ساعة على سنة وكمل مسؤولين تدخل بوعة محمد حسن سامع كل برنامج كما دابا ساعات وقبل والله قسم ورنت دقمة بوعة هذه وانا أتمت هاي تحضرت دقمة بوعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا بقص كان تاجنا وبركي قصر فلقيت يجيني دقمة بوعة قصر كافو عن قان سنة مركي عرف عصبون هذا هنا نورينه كان كاسدان لما قيده بالشيء كذا لأن يرى احتفال علماء الدين أقول هنيك معلمين يروح الله ده كاسة قبل أن نصورنه إلا مجبر هذه هاي لما وحن يسوي شيء دنيا وحضرت الدجاج فكنا لما صدقني كولا قيد قاطان في الله النبي عاصمات كاملة قرمر استفاشي إذا صار نقدر سوق قيد قاطان سلبا نسود وين هذا جاد بالماسطة sidoo kale waxa barnaamijka si hayar laana uga qayb qaadanaya maamulaha dugsiga dhexe Cabdullaahi Ibraahim Primary and Intermediate degmada Boocan ay ardaydiisa iyo macallimiintiisa ku soo dhaw maamulka sidoo warata barnaamijka ka bilowdan saaka degmada Boocan barnaamijkan saaka degmada Boocan ka bilowday nadaafadaynta ay waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo ay go'aansadeen dadweynaha Boocan in ay noohay ka shaqeystaan dalkooda iyo caafimaadkooda barnaamijka yaani ku dhiirigeliyay برنامج سعوديين نقومر بفكر لكن جيران هان أيام وحنا وتشنين إن إسكا وحقصو عاصمات هي نظافة ضيّة عم كرش خيسنا. جاد بوما حصل هاي كل شيء سعيد برنامج كذا دورت برنامج كان الله نظافة كبر زاكة تقربوا عنه. وحنوار الناس اللي ده يا إني هاي تجمر يسقط كلام كذا كتير ونروضنا إن شاء الله وهدي راح نكرر. جاد بوما حصل. sidoo kale waxa barnaamijka si hayar laana uga qayb qaadanaya culimooyinka degmada Boocan عبد الغني محمد وفارح وحده كمدي هاي علماء الدين كدقمة بوعة كسر برنامجك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد dadweynaha halka soo baxay baan ugu mahadcelinaya oo ka qayb qaadanaya kulli wadana nadaafada magaalada ka shaqeeyaan oo leh arday iyo dhalinyaro waalidiin culimo diin macallimiin kulligood ururada dhalinyarada ururada hooyooyinka aad baan ugu mahadcelinaya waxaana leeyahay kuwa kale oo naga soo qayb qaadan maanta suuqa jooga nagu daydo oo saan waxaan faarano oo alaabta u gurana nagiyo dhalinyarada iyo ardayda saasoo kale aan ugu boorinaynaa ummadoo dhanna waxaan u wada sheegayaa in olahaas ay dadkoo dhan ay hal gacan wada yahay oo laga wada shaqeynayo aad ma santay kaasi waa macallin Cabdiqani Maxamed Faarax sidoo kale waxa barnaamijka si agar laana uga qayb qaadanaya macallimiinta iyo maamulka dugsiga sare ee Faarax Maxamed Secondary School Cabdiraxmaan Axmed Xuseen wuxuu kamid yahay macallimiinta dugsiga sare degmada Boocan ku soo dhaw barnaamijka Cabdiraxmaan bismillaah waxay la tahay deenina wanaag loo sheegmaayo halkaas aan maanta oo dhan xiridaas aan taagnay intii tabartayada ahayna waa qabanay dadka kale oo xooga magaalada ah waxaan idin leenahay ninkii waxa weeye daawanayo waa dalkaagi baan ku leenahay inaad qof walba hawl maalin ku dhamaan karta maaha bil ku dhamaan mayso laba bilood ku dhamaan mayso waa hawl soconaysa oo action balan noo socdo weeye qof kasta waxa uu doonayaa inuu ka soo qaybo waxa weeyaan ilaahay dartii uga soo qaybo xoogaaga sadaqayso intaasaan ku soo koobaya oo billahi tawfiiq aad u mahadsanyahay sidoo kale jaamaca wuxuu kamid yahay dhalinyarada saaka sida garlaanta uga qayb qaadanaysa barnaamijka ololaha nadaafada iyo qashin ururta ka bilowday degmada Boocan ku soo dhaw barnaamijka jaamac alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ma hadda kale maanta qorshahan iyo nadaafada ka wadno degmada Boocan waxaan leenahay hurdaayo hargalay weeye ka toosay saxayo saxda khayrka ka roonay sidayo duu socod ba saaray waxaan leenahay si boorina dhalinyarada dhammaan hooyooyinka haweenka
ururada bulshada dhammaan ka soo qayb galaan aad iyo aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu jaamac cali sidoo kale waxaa kamid ah barnaamijka dadka ka qayb qaadanaya hooyo Faadimo Xuseen ku soo dhaw barnaamijka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ololaha nadaafadda oo ka socda deegaanka Boocame isagoo sii socon doona maalmaha soo socda qof allaale qofka muwaadinna waxaan kusoo dhaweynayaa in sidaas oo kale uga qayb qaato billahi tawfiiq salaam alaykum aad iyo aad baad umahadsantahay Nuur sidoo kale Cabdinuur Sheekh Ibraahim wuxuu kamid yahay macallimiinta degmada Boocame waana maamulaha dugsiga dhexe الإمام النووي دقمة بوعمي كل ذي برنامج كمان ولا waa waa ku maasantihiin halka waxa ka muuqda mustaqbalka degmada Boocame oo dantoodii gastay ayagoo dantoodii gastay diintoodana ay amarka nadaafadda ayay u istaageen deegaankooda nadiifiyaan waana aragtaan wana deegaankooda waa ku maasan yihiin qaybaha kala duwan ee deegaanka oo dhan baan ka qayb qaadanaya way ku maasan yihiin waana si wada ilaa inta degmada ka nadiifiyaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale Khaliif Faarax Xuseen wuxuu kamid yahay waxqabadka ku dhaqan degmada Boocame waana gudoomiyaha guddiga nadaafadda degmada Boocame oo saaka si hagar la'aan uga qayb qaadanaya barnaamijka ololaha nadaafadda ee qashin urunta ka booday degmada Boocame ku soo dhaw gudoomiyaha barnaamijka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa dadka ka soo qayb galay hawsha nadaafadda oo ka socota halka kan maadaama uu yahay nadaafad darradu ay tahay wax xun oo bulshada ku xun xagga caafimaadka xagga nadaafadda xagga aadannimada kulli ku xun gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa haweenka oo si hagar la'aana xoog iyo xoolaba ku bixiya had iyo jeerba ololaha nadaafadda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaanba dadka ku dhaqan degmadan Boocame dhalinyarada ururada haweenka dhammaan waa u mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsantahay sidoo kale dhalinyarada yaryar waxay kamid yihiin dhalinyarada saaka si xisir saartay inay ka shaqeeyaan horumarka nadaafadda degmada Boocame ka horaba caafimaadkiina haddaan su-aalna weydiiyo caafimaad darrada iyo caafimaadka kala fiican aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Boocame waxay saaka si hagar la'aan uga wada shaqeynayaan barnaamijka ololaha nadaafadda iyo qashin urunta Axmed Muuse Yuusuf Boocame